ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida waa 23-ka bisha 8 sanada 2020 qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxaa kamida foosha Villa Soomaaliya iyo hadalhaynta magacaabista xilka ra'iisul wasaaraha iyo shakhsiga loo magacaabaya iyo arrimo badan oo ku gadaaman ayaan idiin soo gudbin doonaa maxaa ka soo baxay kulan gaar oo madaxtooyada ay ku yeesheen Fahad Yaasiin iyo madaxweyne Farmaajo kulankaas oo qarsoodi ah ayaan idinkaga haynaa xog xasaasi ah wararkii ugu dambeeyay qarax gaari oo ka dhacay magaalada Muqdisho gudoomiye ka badbaaday iyo meedka laba ruux oo la soo sheegayo Somaliland oo ka gubatay qodob ka mid ah warmurtiyeedkii Dhuusamareeb sidoo kale waxaan xog iyo macluumaad dheeriha idinka siin doonaa cidda maamulaysa doorashadii lagu heshiiyay ee Dhuusamareeb iyo xiisada dagaal ee Liibiya oo waji kala yeelatay intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan aynu ku bilownay wararka naga soo gaaraya Villa Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi uu ka jiro mashquul iyo waliba dhaqdhaqaaqi ugu dambeeyay ee lagu magacaabayo xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa la tashiyadii ugu dambeeyay ee ku dhawaaqista xilkaasi ku jira waxaa dhamaad ku dhow waqtiga 30 maalmood ee uu madaxweyne Farmaajo siinaya dastuurka si uu soo magacaabo ra'iisul wasaaraha dalka balse ilaa hadda ma muuqato in lagu soo magacaabi doono muddadaasi madaxweynaha Soomaaliya oo haatan magacaabida ay ku qaadatay muddo 28 cisho ayaa laga yaabaa inuu baarlamaanka weydiiso waqti dheeri ah sida ay la wareedyo ka tirsan Villa Soomaaliya u sheegeen warbaahinta sidaan xogta ku helnay madaxweynaha ayaa qorsheynaya inuu xilka ra'iisul wasaaraha magacaabo marka heshiis buuxa laga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka inkastoo heshiis laga gaaray shirkii Dhuusamareeb 3 haddana wali waxa heshiiskaasi qayb ka ahayn Puntland iyo Jubbaland macada sababta uu madaxweynaha magacaabista ra'iisul wasaaraha ula sugayo arrimaha doorashooyinka hase yeeshee waxaa la rumaysan yahay inay tahay isku day uu ku xaqiijinayo in ra'iisul wasaaraha cusub aan wax kaalin ay ku yeelan doonin go'aanka gaarista arrimaha doorashooyinka sababta ayaa lagu sheegay kadib markii ra'iisul wasaare Khayre si cad uga hor yimid madaxweynaha taas oo keentay in xilka laga qaado ra'iisul wasaaraha cusub oo ka imaanaya beesha Hawiye ayaa la ogeyn mowqifka uu qaadan doono taas oo madaxweynaha ku qasabtay inuu dib u dhigo magacaabista si aan xogta loo helin arrintan ayaa waxaa hore walaac uga muujiyay maamulada Puntland iyo Jubbaland oo sababaha ay ku diideen shirka Dhuusamareeb 3 ay ka mid ahayd inaan weli la magacaabin xilka ra'iisul wasaaraha cusub si kastaba haatee madaxweyne Farmaajo ayaa ah qof aan la saadaalin karin waana suurtagal in ra'iisul wasaaraha cusub magacaabayo xilli dhow haddii ay muuqato in xilka muranka doorashooyinka aan dhaweyn saacadihii ugu dambeeyay ayuu madaxweyne Farmaajo ku jira inuu ku soo magacaabo ra'iisul wasaarihiisa 20 iyo markii uu xukunka qabtay iyadoo magacaabisan ay ku soo aadaysa xilli xasaasi oo siyaasadda Soomaaliya ay marayso badweynta madaxweyne Farmaajo waxa haysta culays siyaasadeed ay ugu weyn tahay magacaabista xilka ra'iisul wasaaraha oo haatan ay ku qaadatay 28 maalmood laga yaabo inay wax ku darsamaan balse waxa hubanti ah in 2 maalmood ee soo socotay magacaabo marka la eego waqtiga yar ee heesta iyo kala guurka siyaasadeed ee dalka galay iyo caqabadaha ku xeeran oo ay ka mid tahay doorashada ninka la soo magacaabi doono kuma raaxaysan doono mana nasan doono waayo waxa laga doonayaa inuu maro wada qarjajeexa oo ay daadsan yihiin shabaqi siyaasadeed sida daraadeedna ninka imaan doono waxay ku xiran tahay inuu la socdo hadba siyaasadda uu la yimaado inkastoo dadka Soomaaliyeed ay magacyo fara badan hadal hayaan ninka ugu miisaanka weyn oo dadka hadal hayaan waxa kamid ah Ali Maxamed Geedi oo hore u soo noqday ra'iisul wasaare lana aaminsan yahay inuu miisaan siyaasadeed ku leeyahay banaadir iyo qaar kamid ah maamulada dalka sidoo kale waxa jira shakhsiyaad kale iyo iyana la hadal hayo oo dadka ay siyaabooyin kala duwan uga soo qorayaan baraha bulshada lama oga qofka ay foolanaysa Villa Soomaaliya marka laga soo tago hadal haynta dadweynaha iyo magacyada baraha bulshada qabsaday dhinaca kalena madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo taliyaha nabad sugidda qaranka Fahad Yaasiin ayaa xalay kulan gaar ah oo albaabada u xiran yahay ku yeeshay madaxtooyada Soomaaliya
kulanka oo ahaa mid labada mas'uul oo kaliya u dhaxeeya iyo waxa yara fursada laga ogaan karo waxyaabaha sida rasmiga looga hadlay balse warar hoos oo aan ka helnay xubno ka tirsan madaxtooyada ayaa ku waramaya in madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasin si gaar ah diiradda u saareen xaaladda guud ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo magacaabista xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya taliyaha nabad sugidda Soomaaliya Fahad Yaasin oo inta badan iska qariya kaamirada warbaahinta ayaa doonaya in si taxaddar leh loo wajaho xaaladda kala guurka ee dalka iyo in shakhsi hayin loo magacaabo xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya kaas oo laga filayo inuu shaaciyo madaxweyne Farmaajo warar si aad ah la isku dhexmaraya warbaahinta ayaa sheegaya in wax ka yar 48 saacadood uu madaxweyne Farmaajo ku soo magacaabayo ra'iisul wasaarihiisa si wadaya howlaha muhiimka ee horyaala xukuumadda waxaana weli isha lagu hayaa madaxtooyada Soomaaliya ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi ayaa si aad ah loo hadalhayay in loo magacaabo xilka ra'iisul wasaaraha saacadaha soo socda inkastoo warkaasi saxaanshiisa aan la xaqiijin karin Puntland iyo Jubbaland ayaa madaxtooyada ku cadaadinaysa in la soo magacaabo xukuumadda dhaqangelisa heshiisyada lala galo sida daraadeedna kaga baaqday shirkii dhuusamareeb 3 ee dhawaan la soo gabagabeeyay qaybaha hore wararka Soomaalida ayaa daawanaysan halka nagala socotaan waa shabakada wararka maanta warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay qarax goordhow ka dhacay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho qaraxa oo ahaa nooca miinada dhulka lagu aaso ayaa waxa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay degmada Cabdicasiis gaar ahaan garoonka kubadda cagta Engineer Yarisow Ex-Conis Stadium wararka qaar ayaa sheegaya in qaraxaasi lala eegtay gaari uu la socday gudoomiyaha maamulka degmada Yaaqshiid Muuse Geesi Jimcaale oo marayay halkaasi sidoo kale wararka ayaa intaasi ku darayay in gudoomiyaha uu ka badbaaday qaraxa lala bartilmaameedsaday balse waxa la soo wariyay inuu ku dhintay hal qof shacab kaas oo ahaa wada mooto bajaaj iyagoona ay ku dhaawacmeen 3 kale waxa sidoo kale goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka Soomaaliya oo baaritaano kooban ka sameeyay halkaasi wali ma jiro wax faahfaahin oo laamaha ammaanka ay ka bixiyeen qaraxaasi iyo qasaaraha rasmiga ee ka dhashay waa markii labaad ee uu qarax ka badbaadayo gudoomiyaha degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir isagoona 23 bisha Juulaay sanadkan qarax noocan oo kala lagu la eegtay inta u dhaxaysa isgoosiyada Sanca iyo Fagax ee magaalada Muqdisho geesa kalena xildhibaan Axmed Maxamed Diiriye Nacnac oo kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland ayaa markii ugu horeysay ka hadlay warmurtiyeedkii dhawaan ka soo baxay shirkii magaalada Dhuusamareeb xildhibaanka ayaa si gaar ah uga hadlay qodobo kamid ah warmurtiyeedkaasi oo uu sheegay inay quseeyaan siyaasiyiinta Somaliland ee xilalka u doonta Soomaaliya iyo qaabka loo soo xulanayo ee la dooranayo Nacnac ayaa gef ku tilmaamay qodobadaasi maadaama ay Somaliland tahay dal madax bannaan oo xor ah isla markaana aan hoos tagin dowladda federaalka ee Soomaaliya waa sida uu hadalka u dhigay qodob kasta oo maamulka Muqdisho soo saaro ma aha qodob annaga naquseeya doorasho toos ah iyo doorasho dadban midna awood uma laha inay dalka yaga ka qabtaan annaga ayaa ah dal wax walba qabsaday ayuu yiri waxa uu intaasi raaciyay Somaliland waa dal iskii u taagan oo madax bannaan mana aha dal hoos yimaada Soomaaliya waanu madax bannaan nahay oo xur ayaanu nahay waxayna iska dhaadhicinayaan waxaan u soconayn oo ah inay Somaliland oo ah dal isku tashaday inay maamulaan xildhibaanka ayaa sidoo kale sheegay in Soomaaliya ay u daba fadhiisan doonin xiriiradeeda diblomaasiyadeed isagoona ganafka ku dhiftay tallaabo ka soo arintaasi ka dhan oo isku daydo inay qaado dowladda federaalka ee Soomaaliya waanu madax bannaan nahay oo xur ayaanu nahay inaynu xidhiidh la samaysano dowlad kasta iyo dal kasta oo aanu iskaashi yeelanayno awood aynu ku soo caga dhigtaan iyo tallaabo ay naga qaadi karaan ma laha ayuu yiri xildhibaanka ugu dambeyntiina dowladda Liibiya ee caalamku waa aqoonsan yahay ee fadhigeedu uu yahay caasimadda Tripoli ayaa maalinimadii Jimcihii ku dhawaaqday xabad joojin ka hirgasha dalka midaas oo noqonaysa waji cusub oo xaaladda cakiran wax ka bedelaysa dalkan qaniga ku asaliida ayaa ku jiray xiisado hor leh oo dagaaltan iyo markii meesha laga saaray xukunkii Qadaafi iyadoo ay ku loolamayeen wadamo badan oo dana gaar ah ka lahi dalkaasi xabad joojintaasi ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyay 6 xubnood ee golaha iskaashiga Khaliijka sida ay maanta baahisay wakaalada wararka WAM oo Imaaraadka Carabta u qaabilsan faafinta wararka Naayib Faalax Mubaarak oo ah xogayaha guud ee 6 xubnood ee golaha iskaashiga Khaliijka ayaa dhinacyada isku haya dalkaasi dagaalkaasi u soo jeediyay inay u hoggaansamaan tallaabadan wax ku oolka isla markaana ay si degdeg ah u yeeshaan wada hadallo siyaasadeed
Al-Hajraf ayaa waxaa sidoo kale uu ku baaqay in lagu shaqeeyo dhexdhexaadinta qaramada midoobay si xal waara oo dhameystiran looga gaaro afjarista dagaalka iyo waliba iska horimaadka Liibiya ka socda. sidoo kale waxaa dhawaqa dawladda Liibiya ee caalamku aqoonsan yahay soo dhaweeyay hogaamiyaha baarlamaanka bariga ay hayaan dawladdaasi isagoona codsaday in la joojiyo colaadda daba dheeraatay. dawladda Liibiya ee caalamku aqoonsan yahay ayaa iyana qaatay in xilligan magaalada istiraatiijiga ee sirta ay noqoto goob ka caagan militariga maadaama ay tahay aaga xarumaha waaweyn ee dhoofinta saliidda ee Liibiya isla markaana hoos loogu dhigo xiisadda dagaal ee dalkaasi. guud ahaan daawadayaal warka aad kala socoteen channelkan waa naga inta fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biro subscribe sar sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay ku soo gaaraan wararkaynu halkan soo gelino waana mahadsantiin.